madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay guddi ganacsatada oo dhawaan qodobad salooyin ka soo saaray khilaafka dhinaca doorashooyinka ka jira Somaliland. aniga way yimaadeen inta ay ula hadlaan balga u sheegay waliba canaan baa laga dheereysiyay oo ka joogay marka soo wadaan baan ay maagay sharciga lama dhaaf karo garbay qaaday waxay yiraahdeen sharci bay arrintii tagtay sharcigana waa inaynu ilaalinaa xeerta jabna ma gali karo laakiin annaga waxay nala noqotay sidaba qof waliba shaqadiisu ku eegaa arrinta taagan baacmitarku xagga la xajiradu ka eegaa dhakhtarku xagga caafimaadku ka eegaa garyaqaanku xirgeedu baara nimanku ilaa lacag bay ka shaqeynayaan la xajirada waana og yihiin doorashada iyaga la weydiin doonee waxay leeyahay xagga la xajirada baashu waa qaali kala socotaa iyo saara ومن يكون قوسنا هذا حاجة كأجا ما عد بالحمية وأنا فكر بين هذا وافكر واتلاها وأنا وهذا اللي حش على تشيدتي اللي هو يدورشان لو راي دورشان مرصوب بحيل يرد العقل ما يصدق هذيك هذا مشروع الغايسة ترى حقي اللي حش على كأجا وأنا فكر إنه سوق بيان ترى قاردات كقاركال كمرنا أيام يا وحي كون هذا أيام يا وحاساه ورد مجيو يقرأ حلاها وحاسبنا هستنا لا حتشته madaxweyne Biixi oo hadalkiisa sii wata ayaa ka hadlay dhibaatadii dabka ee suuqa waaheen iyo mucaawinooyinkii soo gaaray xukuumadda. waxa laga qabtay lacagta soo gaaray la ururiyay guud ahaan waxa noqotay 9 milyan iyo $100. lacagta badankeeda boqolkiiba 9 waxaan u maraynayaa wax dawladaha oo ina caawiyay وين قالها هذا هي السوقارة دولة هي السوقارة وكان توري نقول تبغى أما هو ولا هذا السوقارة وأقول نقول عن دولة شوفنا واحد ولا السوقارة كمان بنص تحليه ولا هو فقير سبعين السوقارة شيء دولة هي السوقارة وقول عن تبغى وأشوتي يا حمر تايوان شبه ما كانت خليج كدرجي الرسوم مسلمين أنا عرفتنا ولا شفنا هاي iyo qorada iyo wal jecel lahay xaqooda wada yarsanay bal soo gaarayna ee ilaahdo waalid caawinayo magaada mas'uulka brilliance nagu qoran midna dawladda waxa ku caawiyo brilliant gaaranayo madaxweynaha Somaliland waxa kale oo faahfaahin ka bixiyay kiisaska kufsiga ee ka dhacay Somaliland sanadihii u dambeeyay waxa ahaa sanadkii 2020 waxa kufsi oo soo galay dacwadaha maxkamadda booliiska soo gaaray 116 sanadkii 2022 waxa booliiska soo gaaray tiradan 230 sanadkan gudihiisa dacwadaha soo galay maxkamadaha iyo booliiska waxay kordheen 44%. 6 bilood 7 bilood ee sanadkan waxa booliiska soo gaaray maxkamadaha kursigu waa 268 waa $7 waa mashkal aad iyo aad u culus oo ka dheeraynaysa aafan kasta oo inagu socota haddii lagu daadago kufyada ay nooca yihiin iyo sida u eg yihiin iyo waxa ay ka dhaceen ee guryaheena ka dhaca ee gobolka ka dhaca ee hargeysa ka dhaca ummadda maqasha ee diin kasta waxa haystay bini'aadmiga ee maqasha way argagaxaysaa anna halkan ka sheegi maayeen raadsada oo baa kiisaska dhacay Umar Saadiq Televisionka Universal Hargeysa.